Hey, hey, hey. Una good morning, no. Good morning, good morning. Nigeria. Wizkid, Davido. I said if I be Nigerian boy, I'm billionaire. waxaa ku cad in uu soo wado hees cusub. heestaas oo ah hees karbaasha, heestaas oo ku socoto liil baliil iyo fanaaniin fara badan. sababtay tahay waxaa lagu soo karbaashay ama karbaash fara badan loogu geystay ck heesa fara badan bishan gudahooda. marka liil baliilna wuxuu soo wadaa hees cusub oo karbaasha, heestaasna wuxuu ku socotaa ck ckna heestu hadda soo qaaday ama commission tahay oo waqtiyada soo aadan soo bixi doonto ama bilooyinka isbuucyada soo aadan ama bilooyinka soo aadan soo bixi doonto siba 2 week 1 week in soo bixaysa ama meelahaas u dhaxaysa. waxayna heestas ku socon doontaa liil baliil ama wizbi sida ay ereyada ka arki doonto ama markaas uu ereyada isagu ku heesi doono ereyadaas ay noqon doonto ereyo ku socon doono liil baliil ama wizbi. marka waxaa dhibka taaganta ama waxaa dhihi karo ma heesta liil baliil baa soo horbixi doonto ama heesta ck. waa su-aal aad iyo aad isweydiin leh ama su-aal qof walba oo la socdo jawigan ama la socdo xaaladahan noqon doonto oo isdhihi doono oo ku fikri doono yaa kusoo hormari doono yaana noqon doono heestii kala kacda ama heestii ugu hadalheynta badan. dad fara badan baa waxay aaminsan yihiin in ay noqon doonto liil baliil. sababtay tahay liil baliil waa fanaan ee waqti fara badan ku jiray dhanka fanka. ckna waa waqti kooban ayuu ku jiray dhanka fanka, manahan dadka si iyaga ku dhaleelaan ama ku dhaleelaan in oon ahayn fanaan ama fanaan talent u leh dhanka fanka. marka dadka boqolkiiba boqol waxay u badan yihiin dhanka liil baliil oo dhanka fanka ay ku qiimeynayaan ama dhanka raabka ay ku qiimeynayaan ay ku leeyihiin heestiisa waxay noqon doontaa hees hirgasho oo boqolkiiba boqol ah. ma garan karno heestii hit noqon doonto ama heestii waqtigaas social media qabsan doono, laakiin waxaa la kala ogaan doonaa ama la kala saari doonaa markii ay labada heesood midna soo baxdo ama isku waqti ay soo baxaan labada heesood. markaas ayaa la kala ogaan karaa heestii hit ama heest aan hit ahayn. marka dadkana waxay u badinayaan ama dhanka tiktok ha noqdaan ama dhanka youtuberada ha noqdaan ama dadka social media isticmaalo ama dadka taageero, labaduba taageero waxay boqolkiiba boqol ay codadkooda siinayaan ama dhanka isdhihi karaan heestooda waa hees waxay noqon doontaa kala kacdo ama heestii ck loo wado ama heesta liil baliil lagu karbaashkayo. waana arki doonaa labadaas heesood midii saameyn fara badan ku yeelato ama nolosha ck saameyn fara badan ku yeelato ama liil baliil waa soo bixi doontaa ama waqtiyada soo aadan. sababtay tahay waxayna degdeg kusoo bixi doontaa ama si degdeg siima ay kusoo bixi doontaa heesaha labada fanaan midii kusoo hormarta. wizbi wuu karbaashay ama karbaash fara badan buu karbaashay. dadka social mediana waxay dhibcaha faraha badan siiyeen wizbi. mana garan karno sababtay ku siiyeen wizbi dhibcaha fara badan ama saameynta fara badan heestii mar horaan sameeyey. heestaas waa la dhihi karaa heesta cabtooyboy lala barbar dhigi karo oo way ka saameyn fara badan tahay wayna ka views badan tahay. marka mar horaan sameeyey heestaas oo wizbi soo qaaday dhibcaha fara badan sidaas ayuu ku heshay. marka labadan fanaan ama labada raabiste ee ck iyo liil baliil labadaas heesood waan arki doonaa heestii saameyn badnaato ama heestii karbaashkeeda kulaado. marka muuqaalkiina halkaas ayuu ku sameynaa. way ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan. haddaan ku cusubtana waxaan ku leeyahay subscribe saaro si mar walba aan muuqaal walba aan soo gelina aad ula socoto next video iyo waxaan ku leeyahay bye bye.